kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamij aan ugu magac darnay qurba joogta oo inta badan aanu ka eegi doono Soomaalida ku dhaqan magaalada Qaahira ee xarunta wadanka Masar. barnaamijkan ayaan waxaan si toos ah idinkaga soo tabin doonaa toddobaad walba hadduu Allah awood leh oo ogolaado studio TV-ga ETN ee magaalada Qaahira ee xarunta wadanka Masar. barnaamijkan waxaa marti inoogu ah toddobaadkan qoraa Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Ayuub Yuusuf Cali oo kamid ah qoraayada Soomaaliyeed ee waliba dhalinyarada ah ee ku dhaqan wadankan Masar gudihiisa isla mar ahaantaana ah ardayda wax ka barata jaamacadda Azhar qaybteeda luqadaha. haddaba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii qurba joogta. waxaan suurta gashay inaan waraysi aanu la yeelano Ayuub Yuusuf Cali oo ah wiil dhalinyaro oo qoraa ah isla markaasina wax ka barta jaamacadda Al-Azhar qaybteeda luqadaha. Ayuub waxa uu qoray buugan oo uu ugu magac daray sidee ku hanan kartaa dadka jaceylkooda in daqiiqad ka yar isaga ayaana barnaamijkan marti inoogu ah. Ayuub ku soo dhawaad marka hore barnaamijka. bismillaahir rahmaanir rahiim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. marka hore waxaan mahad iska leh Alla weyn subhanahu wa ta'ala Allah soo ii suurta galiyay fursadan weyn ee qaaliga ah. marka xigta waxaan u mahad celinayaa TV-ga caalamiga ah ee ETN fursadan ay ii siiyeen inaan kula hadlo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ka joogaan dunida aan u soo gudbiyo fikradeyda. runtii waxaan kale u mahad celinayaa wariye saaxiibkay Bulqaas. runtii waa mahadsantahay saaxiib waana ku dhawahay barnaamijka. waa tahay su'aasha ugu horeysa haddii aan ku weydiiyo Ayuub buugan aad ugu magac dartay sideed ku hanan kartaa dadka jaceylkooda in daqiiqad ka yar bal waxaad naga siisaa marka hore muuqaal guud oo kooban. waa mahadsantahay saaxiib sida aad sheegtay buugga magaciisa waa sideed ku hanan kartaa dadka jaceylkooda in daqiiqad ka yar. waa buug ka kooban ilaa 208 page. wuxuu ka hadlayaa gebi ahaantiisba inaaweyn ku saabsan sida aynu u hanan karno dadka kale jaceylkooda waliba sida ugu dhaqsiyaha badan ee dadka kale ku soo jiidan karno qalbigooda. waa inaaweyn kala duwan oo aan kala soo dhaxbaxnay quraankeena kariimka ah iyo sunnada nabigeena calaysay salaam iyo waliba dad kale oo cudama ah oo ku takhasusay arrimahaas kana gaaray nolosha meel sare oo noo soo gudbiyay khibradihii iyo wixii ay ka gaareen noloshooda annagana waxaan ku sii darnay wixii yaraa ee aan kala kulannay nolosha. waa buug gebi ahaanba ka hadlaya sida maaragtay ugu sahlan aynu ku hanan karno dadka kale jaceylkooda. tusaale ahaan waxaa haddii aan ku soo qaato wuxuu ku saabsan yahay haddii aan u soo qaato tusaale ahaan cinwaanka ugu horeeya oo aan u bixiyey si aad u noqoto qof la jecel yahay waxaan ku soo qaatay salaanta in qofka aad ku bilaawdid marka hore salaanta markaad la kulatid qof inaad salaantid. tusaale ahaan marka aad qof aadan garanaynin ama qof aad garanaysidba markaad la kulantid inaad salaantid. waxaad ka hadlaysaa marka sida lagu hanan karo dadka jaceylkooda in daqiiqad ka yar. run ahaantii dad badan ayaa
buuggan markii ay dusha ay ka arkaan ciwaankiisa isweydiinaya marka aad leedahay waxa weeye salaanta oo kale dhoola caddeynta oo kale ma waxaad ogala jeedaa waa qaababka lagu hanan karo qofka ama dadka jacaylkooda in daqiiqad ka yar haa saaxiib waa sidaas sababtoo ah ma ahan hadal aan aniga iska leeyahay waa hadal uu yidhi suubanaha sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaaday xadiis saxiix ah oo uu ku yidhi jannada ma gelaysaan ilaa aad ka rumaysaan mana rumaynaysaan ilaa aad iska jeclaataan ma idin tusiyaa wax haddii aad samaysaan aad isku jeclaanaysaan salaanta dhexdeena ku faafiya waxaa meeshaas inooga cad ama aan xadiiskaas shariifka ah ka fahmaynaa in salaanta ay tahay shayga ugu muhiimsan aynu ku hanan karno qofka kale jacaylkiisa tusaale ahaan haddii aan kuu soo qaato saaxiib ka waran adi oo socda meel mugdi ah oo aanan lahayn habeen ah iska socda gurigaaga u socda haddii uu ka soo baxo hortaada qof xoog badan oo dheer oo madow oo ma aragtay kaa dheer adi kaa xoog badan maxaa qalbigaa ku soo dhici lahaa soo isma aad oran lahayn qofkan talow miyuu rabaa inuu ku xoogo mise uu lacag ha qaato mise uu ku dilaba ka waran ninkaas marka uu kuu soo dhawaado haddii uu ku yidhaahdo asalaamu calaykum ya akhi soo ma dareemaysid qalbigaaga farxad iyo reenreen soo isma bedelaayo wixii aad mar in yar ka hor aad ka aaminsanayd qofkaas middaas waxay caddaynaysaa in salaantu ay tahay shay muhiim ah oo aan laga maarmaysanaba ayna tahay shayga aanu ku hanan karno dadka kale jacaylkooda waxaa kaloo ka mid dhool caddaynta sida aan ku sheegay hadda amaba aan ugu baxshay buugga baro sixirka bannaan waxaa kaloo ka mid ah qofka kale inaad dareenkiisa ilaalisid waxaa ka mid ah inaad ugu yeertid magaca ugu jecel yahay iyo kuwo kale oo badan oo buugga uu ka hadlayo waatay waxyaabaha dhame aad soo sheegtay marka ma waxaad ictiqaadsan tahay baa marka sida lagu hanan karo qofka jacaylkiisa oo muddo daqiiqad ka yar oo aan ahayn bil sanad asbuuciyo ama toddobaadyo ma fikir caynkaas qabtaa adigu bal inoo sii faahfaahay haa saaxiib waa wax aan aaminsanahay oo weliba aan hubo xaqiiqdii mana ahan wax aan aniga iska sameeyey waa wax oo maaragtay uu diinteena aan kala soo dhex baxnay xadiis shariifa waxaa ku sugnaaday oo saxiix ah inuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam jannada ma gelaysaan ilaa aad ka rumaysaan mana rumaynaysaan ilaa aad iska jeclaataan ma idin tusiyaa wax haddii aad samaysaan aad isku jeclaanaysaan salaanta dhexdiina ku faafiya marka waxaa inooga cad meeshaas in salaanta ay sabab u tahay jacaylka dadka kale oo aynu dadka kale nagu jeclaan karaan ayub su-aasha kale aan jecla inaan ku weydiiyo waxaa weeye marka buuggan aan la sii gudagelin laakiin dusha laga akhriyo sideed ku hanan kartaa dadka jacaylkooda in daqiiqad ka yar dad baa moodaya in buuggani uu yahay buug jacayl ah oo kii jacaylkii dhallinyarada ah oo ma jirtaa cid iyadoo aan buuggan markay dusha intay ka akhrisay bal jawaabka u soo celisay oo isla markii su-aalku weydiisay oo ayub ma waxaad bilowday bugaagta jacaylka inaad qorto oo kale macnaha si kaftana kugu tiri saaxiibada oo kale su-aasha anigoo weliba ka faa'iidaysanaya maaragtay waxaan u mahad celinayaa dhalinta ku nool magaalada qaahiro oo runtii intooda badan iga soo gaareen hambaryooyin kala duwan oo ku saabsan buugga iyo maaragtay sida ay ula dhaceen buugga ama su-aashaada haddii aan usoo laabto qaar ka mid ah dhalinta way i weydiiyeen oo waxay igu yidhaahdeen maaragtay buuggan ma jaceylkii oo ka dhexeeyey dhalinta gabdhaha iyo wiilasha miyuu ku saabsan yahay mise waa jaceyl oo maaragtay oo diini ku salaysan qaarna waxayba comment ahaan igu sameeyeen maaragtay laafka ama ubaxa iyo maaragtay midabka gaduudka ah ee ku sawiran buugga waxayna u qaateenba in buugga uu dhan yahay buug jaceyl ah oo u yeerayo dadka maaragtay in wiil iyo gabar ay isjeclaadaan oo jaceylka kan laakiin aan uga dan leeyahay buugga ma ahan waa jaceyl kale oo iyaga si kale u fahmeen laakiin runtii aniga buugga waa buug diini ah